waxaana wanaagsan dhammaan halkan naga daawanaysaan waa Hargeysa online maalmahan waxaa shir ugu socday laba beelood boorta gacan libax duleedka magaalada Hargeysa saan tafaasiil dheeraad ah u ogaano waxaan wareysanaynaa Mustafa Axmed Xuseen oo ah khabiir ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaalida soo ku sugan magaalada Hargeysa ku soo dhaw Mustafa Hargeysa online maxaad ka haysaa ama aad ka ogtaa ama naga siin kartaa sawir guud shirka soo u dhacay ka socda gacan libax hello boorta gacan libax ha waan gartay maxaa ahaa toolay maxaa keenay asbaabta hadda labadan beelood ay u shirayaan maxaa duruufaha keenay waan gartay laakiin dadka qaar waxay leeyihiin khalkhal buu yara keenay ama isha lagu wada hayaa shirka ka socda maxaa markaa culays uu keeni karaa haddii laba beelood ay shirayaan ama isxaal ogaanayaan ama ay aayahooda dambe ay ka wada tashanayaan maxaa keenay khalkhal inay Somaliland laga aaminaba waan gartay maxaa markaa la oran karaa ayaa ka soo bixi kara shirka ama qodobada maanta ka wada hadlayaan ugu muhiimsan maxaad mid iyo laba aad ka og tahay ama aad ka maqashay hello ما مغلسة
ها يعني maxaa qodobada ugu muhiimsan mid iyo laba maxaad ka maqashay ama aad ka og tahay ay ka shirayaan labada beelood waan gartay laakiin muddo laba maqal labadan beelood oo wada shiraya ama isku imanaya laba maqal beelaha kale waa la maqli jiray dhowrkii sano la soo dhaafay marka maxaa la oran karaa labadan beelood ma iskaashanbooraysi bay ka wadaan ma la oran karaa markaas sida ay beelaha qaar ba ay sameeyeen waan gartay waxaa jirta warar hoose ay wariyaal si gaar ah igu soo diraan oo horodhaca qodobada ay la isku hayo ama shirka uu yahay in ay la bedelo dastuurka Somaliland warka ma maqashay inay saa doonayaan labada beelood ama wax lagu daro waan gartay marka hadda waxaad leedahay waa shirkan waa shir loo baahnaa baad leedahay oo maxay ahayd tolay muddo la sugayay maad leedahay miya waan gartay kaas wuxuu ahaa Mustafa Axmed Xuseen oo ku sugan magaalada Hargeysa isagoo sharaxaad guud naga siinayay shirka beelaha Garxaajis ee ka socda maxaa ahayd tolay boorta Gacan Libax aad baad maasanta Mustafa